leenahay oo aanu iska xigno hartiga intiisa kale dadka ku andacoonaya hadeerto reer nugaaleed baa mucaaradahoo waxay taageerayaan SSC arintu sidaa ma aha asalku waxa weeyaan dadku waxay muhiimadu waa wada dhalashada 10 goor baan waxaan idin sheegay war Puntland magaca la yiraahdo waxa la bixiyay 1998 SSC na waaba shalay dadkani waa wada dhasheen dhulkana waa ay wada leeyihiin annaka haddaan nahay reerka halkaas degan marka laga reebo Ciise Ruush reerka labada garow degan annaga way reerka labada garow degan annaga way that is why dadka hadda garow ka shaqeynaya inta reer garow waxa ay xaq bay waxay u leeyihiin inay garow iska sharaxaan in reer garow ay doortaan ama diidaan iyagoo aanan iibsanayn iyagoo aan la magacaabay tawana ku baraarugsanaataan hadda ka hor baan anigoo dhalinyaro ah oo caadafadaysan berigii la sacnood la haystay baan waxaan iri inuu dhulka aynu deganahay waa SSCN gobolka Nugaal baan ku daray nin ila talin jiray baa wuxuu yiri maadaama dhulka intiisa badan la haysto inaa hadda magaca in ku dartaa macna ma sameeyo buu yiri iska daa garow yaan loo arag inaad heer garow ka sheeganaysid dhulka adoo kaagi kale baan meel ku ogay waan qaatay ereygaas reer Nugaaleed waxay og yihiin hadii laas aanood ay gacan cadow gasho inaanay garow xor ahaanayn ilaahay subxaanahu wa ta'aala baana mahad u sugnaatay 10 goorna waan ka sheekeeyay maalintii nimankaasi ay ku taamayeen inay yoocada tagayaan hadii ay u suurta gali lahayd inay yoocada gaaraan ujeedadoodu waxay ahayd inay gooyaan wadada gaalkacyo garow isku xidha halkaana uu halbowluhu ku go'o garow iyo gaalkacyana ay doon is raacaan marka jacayl ay dadka naga jecel yihiin iyo xiriir gaar oo anagu aanu la leenahay reer garow ama reer Nugaaleed siyaasiyiintu soo taageermaya laakiin waxay og yihiin waaqaca iyo culayska garow ka digay cadawga gooni u goosatada markii la kiciyay nimankaas maxaabiista ah reer Nugaaleed bay u badan yihiin nin inaadeerkaaya oo ku soo gurmaday oo garab ku soo siiyay inuu gacan cadow galo waad garanaysaa dhibaatada ay leedahay waad garanaysaa magac xumada ay leedahay waad garan karaysaa miisaanka ay leedahay nimankaasi waxay ahaayeen nimankii dadka wax garadka ah reersiisi hurdalaanta ku riday waxa la isweydiiyay qiimo kasto ay ku kacayso sidee nimankaas xorriyadooda u soo deynaa waxa laga fikirayay maxaynu nimanka ku bedelnaa waxa laga fikirayay sidee baynu nimanka u qaabilnaayo nimanka ugala hadalnaa oo nidhana inta kale haysta laakiin nimanka nagala hadla miiska waxa saaraa qiimaha nimankaas ay doonaan ha ku kaceen in nimanka xorriyadooda laga shaqeeyo waxa la raadinayay wasiilad wadadii dhexdhexaadka ahayd oo nimanka loo mar lahaa laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka uu doonayo inuu ku karaameeyo ilaahay marka uu doonayo inuu ku sharafo rabbi subxaanahu wa ta'aala marka uu doonayo inuu arrimahaaga isku aadiyo hadduu doono wuxuu ka adeejiyaa kuwa adiga cadow kugu ah ama adiga kuwa kugu xumeynaya ama kuwa wax kale ka raadinaya ilaahay baan mahadiyay subxaanahu wa ta'aala markii aan maqlay inay xorriyadooda heleen nimanka unitka ah nimanka unuga ah ee Cabdimudallib iyo ninka la yiraahdo ay hogaaminayaan iyo aarsade iyadoo aan wax kharash ku bixin alxamdulillah thumma alxamdulillah waa wax ilaahay lagu mahadiyo weeye waa wax lagu farxo weeye waa wax la soo dhaweeyo weeye qodobkaas intaas baan ka oranayaa waana ka mahad celinayaa cidii ama magac ka raadisay ama siyaasad ka raadiyayna waxaan leeyahay culayskiina ilaahay hadajiyo qodobka labaad oo runtii aniga fajicisada igu riday wuxuu ahaa ninkii been madow ahaa oo ummadda Soomaaliyeed ka dhintay mar hore meel uu joogaba ha jirtee aan ummadda sharaf ka lahayn in inta sharaf laga raadiyo garow la keeno waxaan isweydiiyay xumaanta xadka gaadhay iyo fool xumada heerka gaadhay waxa ay nimankaasi ka raadinayaan oo ay ka doonayaan Hargeysa wuxuu ka lahaa maalin dhaweed oo xaflad ka hadlayay habarawal iyo habar jeclo iyo isaaqu isugu goodinayeen wuxuu yiri habarawalay buu yiri intaad baloodhada ku mashquulsanaydeen baan haddaanu habar jeclanahay waxaanu ka fikiraynay buu yiri 10 sano ee soo socda saan wuxuu noqon lahayn haddaan habar jeclanahay waxaan isweydiiyay waxa la yiri biyaha aad hortooda arkaysid dabadooda waa caraq nimankaasi nimanka oo kaasi dhaqanka u yahay iyo dhaqanka ninka sheeganaya ee luuqada ku hadlaya
nimankii siyaasiyiinta muxuu u hambeeyey waxaynu ogeyn in muuse biixi loo bariyey oo uu cafiyey oo habara wal ay hargeyso ku soo dhaweeyeen oo gacmaha laga dhunkanayay bal waxa isweydiisaa ninka dhaqanka ah ee ummadii uu dhaqanka u sheeganayay sida ula hadlaya muxuu siyaasigooda odhanayaa ceeri gaabo waad ogeydeen wuxuu ka yiri burco waad ogeydeen wuxuu ka yiri ninkii noocaas ahaa marka laga yimaado inaan garaa jaamac iyo dhulbahanta loo hambaynayn oo aan waxba loola hadhayn oo ujeedadu ay tahay haddaa rabtaan dhinta bal waxaad isweydiisaa dhaawaca reer sanaag loo geystay ninkii ceerigaabo ka yiri 5 nin oo dhulbahanta markii la dilay uu ceerigaabo tagay markaasuu wuxuu yiri markii inad isdabar uu wiilkii Salmaan askarta u diray oo la dilay oo nimankii Muuse Ismaaciil sida khaladka ahaa loogu laayay tuuladii magac lahayd wuxuu ku yiri wayni isu aanownaa wayni isu aanownaa hadday tahay macnaha haddaan dagaalka wada gelaynaa maalintii weydoo la lahaa waxbaa la qaramaynayaa burco wuxuu yiri 5 goor 3 dagaal oo ay galeen ciidamadayda madaniga ahay 3daba maxaabiis bay keeneen bal waxaad isweydiisaa soo dhaweynta ninka la yiraahdo Buurmudug lagu soo dhaweeyay iyo ujeedada ka dambaysa marka laga yimaado dhaawaca iyo damage-ka ay u geysatay qulubta dadka dhaqanka iyo akhlaaqda u saaxiibka ah ee gobolada wada degan isku wada kici bal waxaad isweydiisaa dadkii ceerigaabo laga qaxiyay oo hadda nabadda loogu baaqayo damage-ka ay gaarsiisay bal nimanka siyaasiyiinta sheeganaya ee ummadda hor fadhiya qiimaha Buurmudug ka galay oo ay ka raadinayeen bal adigu intaad rogtid ka soo saar waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo isimada dhaqanka ee gobolka Nugaal Suldaan Garaasa joogay islaankii waxa ku maqan suluxa ay sheeg ceelbo oo suldaanku uu ka fogaaday yidhinimayahow anigu nin bulaacad iyo wasakh lagu sawiray ma ahi waa ka mahad celinaya sideedabana dhaqanka dadka hartiga la yiraahdo iyo waliba hawiyuhu way ka duwan yihiin dhaqanka nimankan waqooyiga degan wali miyaad aragteen isimo dhaqan ah oo majeerteen oo isu jawaabaya taariikhda ma aan diiwaan gelin isim dhulbahante isim majeerteen oo majeerteen u jawaabaya warsangeliga iyo dhulbahantaha way dhacday mar ama laba way dhacday laakiin taariikhda lama hayo isim majeerteen ah oo isim majeerteen u jawaabaya dadkii loogu qadarinta badnaa ugu muxtaramsanaa gobolkaasi ahaayeen iyagoo maanta iskhilaafsan oo dani kala dilay oo nin salaama uu ku yar yahay misana waxa weeyaan cidina mooga wax ka dhaxeeya wali nin u jawaabaya iyo nin isimahoo majeerteena hore hebel baan wasiir ka dhigaya ama hebel baan madaxweyne ka dhigaya lama arag dhaqanka maxaa lagu yaqaanaa akhlaaq iimaan aadaab iyo islaamnimo ninka dhan walba u ridaya oo wuxuu sheegaa ay beenta yihiin oo wuxuu gowracaa ay xaaraanta yihiin ayaa garwo la keenay waxa isweydiisaa nimayahow hadda ka hor waxaan idhi gulufka iyo geerida jirta iyo galada yeedhaysa gardarrada sokeeyaha warmaha la isla gaadayo garabsiga shisheeyaha amxaar guudka lagu qaato dhulkeennoo la gado iyo baddeennoo la kala gooyo soomaalida gumaynteeda iyo eedu kala geynta niman baa guddoonsaday inay sharaf ku gaadhaan ninkaasi ceerigaabo wuxuu ka yidhi Somaliland calan aan ahayn laga taagi maayo nimanka halka ka guuran guryaha way iibsan karaan laakiin xal kale uma hayno garowna wuxuu ka sheegayaa inuu xamar tagayo oo ay dani dhisayaan bal hadda nimankaasi waxay yidhahdeen Soomaaliya waanu ka go'naa anagu dawlad gaarana kuwooda xamar jooga iyo kuwooda hargeysa joogana waxa ay ka shaqeynayaan inaanay Soomaalida dawlad noqon inaanay israacin bal nimankaasi dhibaatada ay Soomaali ku hayaan iyo halaaga ay dadka la damacsan yihiin waa go'onay bay yiraahdeen calan gaaray samaysteen marka laga reebo inay u dhimanayaan been dadkana ay been ku dilayaan dawladii ay ka go'een bay hagardaamo ku hayaan waxay leeyihiin reer hebel ma istaahilaan reer hebel baa istaahila annagaana dhisayna markaasay u sacaabinayaan kuwa wax magarata ah hoos taagan yihiinoo ka rajaynayaan been madow inuu xamar ku dhiso bal garashada dadka hagaysa iyo waxa ummadda hor socda oo ama siyaasi u sheeganaya ama dhaqan u sheeganaya inay Soomaalida wadadii halaaga hayso bal fiirso bal waxa idinku wax ka dhaha war Sacuudinkii go'ay
soodinkii dowladda gaarkaa sheegtay soodinkii ictiraafka doonayay maxaa xamar iyo cidday dooranayso iyo cidda ku wanaagsan iyo cidda ku xunkaa galay bal ummaddii soomaaliyeed garashadeedii inay foorarsatay u fiirsada waad ogeydeen waraysi uu hadda ka warbixiyey hawiyu wuxuu u tiriyey laflaf afgaalba wuxuu u tiriyey laflaf inay xilalkii dowladda wada qaateen inay safiirada wada qaateen bal maxaa ka galay hadday wada qaataan maxaa ka khuseeya soo ka calanka goonida a sheegtay oo guryihii ceerigaabo ku leeyahay waa inay iibsadaan maxaa ka khuseeya soomaaliya iyo cidda ay dooranayso cidday diidayso midda labaad ninka maanta ka rajaynaya inuu xamar ku dhiso buurmadow oo rajadiisu ay ku jirto in buurmadow intuu xamar u kaxeeyo uu madaxweyne ka dhigo maxaa u malaynaysaan garashada noocaas dadku SSC maanta waxay la dabaaldegayaan firdhaya xamartigay waxaanu fadhiisanaynaa meeshii magaca lahayd ruuxaasu muhiim maaha kursigii dani baa lagu fadhiisanaya kal hore haddaaya markii doorashada loo diyaar garoobayey oo xamar loogu qulqulayay dani waad ogeydeen guuto ciidana buu kala degay muqdisho garoonkeeda oo bardaloolaya sabana sida tawaad garanaysaa nin baa fadhiyey meesha madaxweyne ah oo la yidhahdo waa daaro muxuu maalintaa diidanaa khilaafka isaga iyo axmed madoobe iyo xasan sheekh ka dhexeeya ama masaalix soomaaliya ku salaysan yahay calaa kulli xaal dani waan arkaynaa in buurmadow meeshuu geeyo waxaase wax laga xumaada ah oo inaba wax aan la aqbali karin ah anigu dani kuma dheeraanayo iyo tiimkaas horaan uga hadlay in la yidhaahdo dani baa baran tegayo oo buurmadow baa imanayo oo ciraa ceerigaaba imanayo oo weliba la leeyahay dani wuxuu yidhi ceerigaabaan tegaya xishoodkii goormuu sidaa u dhintay iyo akhlaaqdii dadka maxaa loo war meesha miyaan dadka manay bini aadam ahayn miyaan wax gartaa joogin dadka maa laga xishoodo ninkan miyaanay cidila talin miyaanay cidila shaqayn miyaanu saaxiibba lahayn ninkan yaa wax weydiiya aan ku soo koobo garashada iyo garaadka aad hogaamin siyaasadeed ka sugaysaan hartiyow wiilashii soo halgamay ee laascaanood lagu qabtay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowga gacantiisa ka soo daayay oo magaaladii ay u dagaalamayeen oo xor ah laga sugayo oo dadkii waddooyinka u taagan yihiin aqoonta boosaaso u xawishay baa idin hagaysaa dad haddaad ismoodeen wataa darajadiinnii daayeerada idinka rondaaqa geedaha nimankaasi han qaranna male han qabiilna male nimanka wax ka raadiyey inay yidhaahdaan snm oo kun wiil dishay oo inta aa ogtihin ay dhaawac u tahay baanu xidhiidh la samaysanaynaa iyaguna ay yidhaahdaan majarteen baan jecel lahay inaad majarteen jeclaataan waa waxaanu ka shaqaynay inaad soomaali jeclaataan waa waxaanu u dhimannay inaannu idin rabayno oo majarteen cagaha iyo madaxaba aa ka dhunkataan waa waxaanu annagu u dhimanay wey ilaahay baa noo fududayey subxaanahu wa tacaala majarteen baana noo sahlay oo garab iyo gaashaan nagu siiyey inaad maanta iyaga jeclaataan garow waan qabsanayaa markuu qarowgu gaadhsiiyey 10 baa majeerteen u qoray oo ku yidhi qayb kuna yidhi qudhaadaa xigta qooqa ha u noqon inaad majeerteen jeclaataan waa sax inaad hawiyo jeclaataan waan soo dhowaynaynaa laakiin